السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal waa gurmadka fatahaada magaalooyinka Soomaaliya ku yaala, gaar ahaan Baardheere, Beledweyne iyo Bardaale. waxaad la socotaan walaalayaal in masiibo rabaani ah oo fatahaad iyo roobabkii da'ayay ay dhibaato fara badan geysteen iyo barakac. dad waxaa jira aan haysanin wixii ay ku noolaan lahaayeen, shelter aan haysanin, cunto aan haysanin, cabitaan aan haysanin. dad walaalaheen Soomaaliyeed ah. magaalada Beledweyne ayaa ugu daran. waxaan halkan baaq uga jeedinayaa anigoo ku hadlaya isla markaana ah afhayeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway. anigoo ku hadlaya magacaas dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan in loo gurmado, isla markaana gacan la gaarsiiyo walaalaha ku barakacay Baardheere, Bardaale oo gobolka Baay ka tirsan, iyo Beledweyne oo gobolka Hiiraan magaalo madaxdiisa ah. waxaad la socotaan magaalada Beledweyne 3-4 goor buu webigu dhex maraa. anigu waan joogi jiray Beledweyne, aqoon baan u leeyahay. iskuul ayaan ka dhigan jiray 10 sano ku dhowaad. 3 buundo ayaa marta. webigu sidaas ayuu ugu leexleexdaa. wuxuu kasoo bilaabmayaa buundo koowaad ama buundo liiqliiqato, kor ayuu xerada Lamagalaay kasoo maraya, dabeetana wuxuu goynayaa buundo weyn, kabacdina waa baxaya. wuxuu goynayaa marka kale buundada cayaarta oo magaalada laga soo galo dhanka bariga Ganda Gundisho oo 5 kilomitir u jirta magaalada. marka magaalada la leeyahay 50,000 ilaa 70,000 oo qof ayaa ku barakacay. waa dareemi kartaan walaalayaal dhibaatada ka jirta halkaas. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka ka Norway iyo wadamada deriska ah ee Scandinavianka inay isu xilqaadaan, isla markaana xawilaadlayaashu waxay ballan qaadeen inay lacag la'aan ku dirayaan wax allaali iyo wixii gargaar ah ee ku saabsan 3 deegaan ee laga barakacay ee webiga uu maro Jubba, webiyada Jubba iyo Shabeelle. marka waxaan leenahay walaalaha Beledweyne ha loo gurmado. dadka Soomaaliyeed oo dhan waa isku mid, waa dad walaalo ah oo muslimiin ah. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay almuslimuuna fi tawaadihim wa taraxumihim kamathali aljasadi alwaaxid. waad la socotaan walaalayaal, rasuulku ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah. wax allaale iyo wixii wanaaga ee khayraad bixisaan ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala ayaad ka helaysaan. tan waa urgent call. urgent call waxaa la yidhaahdaa waxa degdega ah. marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha loo gurmado walaalaha. ma haystaan biyo ay cabaan, ma haystaan baad, ma haystaan shelter ay ka galaan dhaxanta iyo kulaylka. haddii laga soo qaxay oo labada deg loo qaxay ee galbeedka iyo bariga, labaduba anigu waan joogi jiray deegaanadaas, waana ku soo koray. runtii waxay u baahan yihiin dadkaasu gurmad degdega ayay u baahan yihiin. waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed ha loo gurmado walaalaha Beledweyne, walaalaha Baardheere iyo walaalaha Bardaale. waana idin wada salaamayaa walaalaha muslimiinta meel walbood joogtaan. magacayga waxaa la yidhaha Axmed Nuur Sheekh Cabdulaahi. waxaan ka tirsanahay bulshada Soomaaliyeed. waxaan ahay samafale iyo maaragtay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dibadahaba jooga. waxaan kaloo ahay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka ka Norway. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha loo gurmado gudaha iyo waddankaba. waxaan halka kan ammaan iyo bogaadin uga soo jeedinayaa madaxda qaranka oo ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha baarlamaanka
iyo guddoomiyaha aqalka sare oo dhaqaalihii ay qaadan lahaayeen bisha tan isaga jaray kuna yaboohay isla markaana ugu gargaaray halka axmed madoobe uu diiday in maanta masaajidii magaalada kismaayo ku yaalay looga ururiyo deegaanada webiga fatahaadda iyo roobabka sidoo kale nimankii qarandumis iyo danley oo ugu horeeyo xasan qoslaaye shariif moogi shariif sakiin guuleed dhagajuun ina mako dhammaantood aysan soo hadal qaadin walaalaha beledweyne baardheere iyo bardaale oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay ugu gurmadeen taana waxaan leenahay shame on you inaad 2021 iyo olole aan jirin 2 sana ka hartay ha isku mashquulinina walaalaha u gurmadaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha loo gurmado gaar ahaan magaalada beledweyne waan idin wada salaamayaa assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.